xiriirkeenna waad aragtaan waxay ka turjumaysaa maanta aan joogno inay Turkisom Academy aan kulligan markhaati ka wada nahay inay qalinjabiyaan saraakiil iyo saraakiil xigeenno 29 sano kadib waa maalin taariikhi ah oo kulligan aaminsanahay inaan qiiraysanahay maxaa yeelay inay noo soo baxaan dhalinyaro 2 sano ku jiray academy oo bartay cilmiga militariga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno waxaad ka heli kartaa oo kaliya saaxiib iyo walaal yaad ka heli kartaa maanta waa aragtaan waxaan hor taagannahay dhalinyaro yaryar oo laga yaabo 30 inaysan gaarin oo haysta academy oo waddanka dhexdiisa lagu tababaray waxaa idin saaran waajibaad aad iyo aad weyn oo baaxad weyn waa tiraahdeen waxaad ku dhaarateen inaad dalka daacad u noqotaan waxaad ku dhaarateen inaad dalkiina difaacdaan oo u dhibataan waxaad ku dhaarateen inaad wadaniyiin tihiin taasna waxaa laga rabaa kulli ciidamada qalabka sida inay ku dhaartaan maxaa yeelay daacadnimadu waa nolosha nuskeed weyn waad ogtihiin 2 sano iyo 6 bilood ku dhawaadka aan joognay inaan ku guulaysanay inaan ilaalino xuquuqda ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waana wadi doonaa waana kordhinaynaa hadduu ay yiraahdo